wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa si kulul uga hadlay dagaalkii cuslaa ee xalay ilaa saakay ka dhacay gudaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. wasiir Dube ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xoogga dalka ee ku sugan xadka ay soo weerareen maleeshiyaad fallaago ah iyo ciidamada difaaca Kenya oo wada socda balse ay iska difaaceen isaga oo sheegay in jab xoogan lagu gaarsiiyay dagaalkaasi. sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga adkaaday fallaagada ay soo abaabushay Kenya iyo ciidanka shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday Beled Xaawo sida uu hadalka u dhigay wasiir Dube. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax banaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay. ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya Cismaan Abuukar Dube oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan jabhadda weerarka soo qaaday lagu qabtay dagaalka Beled Xaawo isaga oo shaaciyay in aysan soo bandhigi karin maadaama ay yihiin wiilal Soomaaliyeed oo la qalday. waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa qori dhacayee oo wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan in aanu halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray. ugu dambeyn wasiir Dube ayaa sheegay in sababta ka dambeysay jabka jabhadaasi uu ahaa in ciidamada dawladdu ay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo yimaada isla markaana ay ku jireen foojignaan dheeri ah sidoo kalena ay shacabku garab istaag u muujiyeen askarta dawladda taasina ay saaciday in laga adkaado fallaagadaasi sida uu hadalka u yiri. sida loo jabiyay baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo ka horta xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jahas diyaar garowgaasi wuxuu baajiyay ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqeynayeen cadawga cadow kalkaalka muddo dheer waxa kale oo nimanka jabiyay shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyay cidda shacabku raaco ayaan baanan bar walba guusha tan saddexaad ee araxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyadu haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo waa ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen waxba laga yaabaa qolays lahayd maruna magaalada tagteen in iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamay sidii xaaladda magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa caawa degan balse waxa wali dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka